asxaabta isku soo noqosho wanaagsan waxa inoo socdo casharkeeni ku saabsanaay array in C language. So array in C language soo casharkiina lasoo dhafaan kusoo qaadanay definitionkeeda, syntaxkeeda iyo sidii u shaqeynayso. Casharkan waxaan ku qaadan doonaa qaabka loo isticmaalo examples aan idin tusaa. So ilaa dhowr nooc example aan idin tusaa sida compile time initialization oo laba example idin tusaa iyo runtime initialization. sida banaan bay marka code sameynaysid wuxuu kala baxaa compile time iyo runtime. macnaha compile time waa marka file uga siinaysid inta programka dhigaysid waa ina file uga siisid. runtime kan waxa waa compile markuu dhamaado ka bacdi qaybta output-ka screen-ka ah waa ina ku initialize-gareysaa. example aad ka tusaa sida yani u fahantiin. always waxaan isticmaalnaa code block ina isticmaalnaa hadda waxaan ku bilaabaa compile time initialization. So compile time initialization two example aad ka tusaa oo simple examples. hadda waxaan isticmaalaynaa like integer data type waxaa loo isticmaalaa numberska caadiga ah like from 0 to 9. so waxaan ka dhiganaynaa array name-keena waxaan ka dhiganaynaa like roll number ka dhiganayna. so roll number hadda waxaan qaatay kii waxaan u qaatay roll number macnaha name-ka oo arrayga magaca yani arraygan isticmaalayna magaciisu waa roll number. so ilaa 5 xabaan 5 elements 5 size-kiisana waxaan ka dhigay 5. okay so maadaama compile time initialization aan sameynaa compile time initialization-ka sida ugu fudud oo initialize ku siinaysid wuxuu noqon doonaa waxaa leedahay SQL bracket kana soo furanaysaa then given value halkan le qiimaha ku sii like waxaan siinaynaa 0, 1, 2, 3, 4. okay shantii elements hadda saas ku sii then statement-iga semicolon waa inoo dambaysiisaa. waxaan leenahay for loop aan soo qaadanaynaa. okay for int I equal 0 semicolon I is less than I 5 fikirta soo maan 0 to 5 waa so is less than aan leedahay then I plus. okay in waxaan leenahay printf waxaan leenahay student roll number soo maan. okay roll number waxaan leedahay kula mid noqon doonaa percentage d waa inaan siisa maadaama integer aan isticmaalayno comma waa inaan soo qaataan kan kana copy paste soo dhahnayna. okay control v meeshaan shanta waxa ka dhigay ay u bedele. okay statement-iga semicolon waa inaan u dambaysiinaa. waxaan sameynaynaa compiler leenahay wax qalad inuu sheegin kale wax qalad ma lahan. so meesha waa inaan gelinaa percentage and like new line. okay compiler ku sameynaynaa then kana leenahay. okay hadda soo jeedin waa kana roll number 0 ilaa 1, 2, 3, 4. so hadda wuxuu output-keena uu noqday ilaa iyo roll number-ka inuu noqday kii 5. so saan idin soo sheegay difference-igu dhaxay array iyo variable waxa waa hadda this roll number kaliya waa hal magacay wadaagayaan bad value-gu kala duwan yihiin. roll number 1 ilaa hadda 4 ilaa 5 elements isticmaal. elements-keena koobaad wuxuu qaatay waxaa lagu initialize value-giisu waxa waa 0 elements-keena labaad waa 1, 2, 3 ilaa 4 laakiin magac ahaan waa ka same laakiin waxay ku kala duwan yihiin value-ga. okay like marka doonayna sidoo kale inaan sameeyno student roll number kood marka qabnayna yani daabacno maadaama hal magac aan isticmaalayno different value aan isticmaalnaa because student roll number like wuxuu ka bilaabanaa soo kale 1, 2, 3, 4 qaabkaas oo kale laakiin magaca waa isaga mid mahano. marka taas oo kale sheekadu noqoto ma loo isticmaali karo variable because way kugu adkaan hadda u isticmaal maaytay waxa ka haboon ka wanaagsan in uu isticmaasho array. so hadda qaybta ugu fudud hadda doonaysid in yani badiso waxa leedahay inta la ka badin kartaa like 5 kana bedel 10 ka dhiga
then qiimaha inta ka bedelne waa comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma 9 so inta doonta ka dhigana inta jeceshaadi tuusanis uu hadoo dano ku keedina okay sorry qalad baa dhacay waxa leedahay halkan shantan sagaal bedelay keedan okay hadda waa kana yes waa roll number 0 till roll number 9 hadda waa kana noo daabaqay so waxaan sameeynaa initialization ka sida ugu fudud ee compile time ka oo loo initialize gareeyo marka aad isticmaalayso waa qaabkan okay qaabkan qaab kale oo waxa jirto ayadana loo initialize gareeyo laakiin qaabkana qaabka ugu fudud oo loo initialization loogu sameeyo in compile time waa qaabkaas okay qaabka kale muxuu noqon doonaa qaab kale waxa leedahay adigoo dhaha qaab kale waxa leedahay qaabkan hadda waxaan sameeymaan integral number ilaa 10 sala kala soo fudeynina 5 aan ka dhiganayna وستن وينقبضنا ماشى وقت اللي قاعدين أنت different values مننا so هذا حلا هاي قبل ما جعنا كوب بسود هنا okay كوبي من بست okay هذا حلا نهرول نمبر كان zero قيمة سيننا قيمة اسمه نقطة نتصل كلا وانا كديجانين أنا تصل كلا طبعا كديجانين semicolon كإسلاسي أنا دم كوب بسمينا waxaan sameeynaa hadda meeshaan zero wana u bedelinayna saxan idin soo sheegay hadda 5 element isticmaala roll number waa 5 kaas waa macnaheedu ku taagan tahay 5 element ama 5 items so 5 elements kaas element 0 ruux ka bilowda saa idin soo sheegay index number is starting from 0 so index number keen wuxuu ka bilowdaa 0 1 ilaa 5 qaabkaas ama so qiimaheena ka bedelinayna 20 kala ka dhigana okay next step copy aan ku sameeynaa copy kale okay this is enough okay so halkan isku bedelay halkan waxa noqonay halkan waxa noqonay 4 so 5 medis because waxa noqonay قاعد بقى واحد F5 minus 1 because واحد كسر باللود السيرة كسر باللود هذا هو تاجنت 0 1 2 3 4 صار ب 5 في قوته اوكي سو قيمها انت حاجه دي تصاله كلا صودون اوكي مد كلا قيمه اسكو مid waa daabici kartaa lacag all toban waa ka dhigi kartaa same le ma mushkila waa ka dhiganay 4 so kan 5 okay hadda waxaan sameeynaa qalad ma lahan aan daabicayna output-keena okay soo jeedad waa kana roll number 10 ilaa roll number 50 okay marka hadda initialization ka and compile time ka laba nooc la soo dhaafay iyo qaabkan soo hadda saa u fahantiin yani qaabkii la soo dhaafay fudud u jeedin because qaabkan ilaa wuxuu naga qaatay codkeen yani siyaada amal macnaa complex oo noqona oo naga badana soo saas ma fiicno initialization ka qaabkii la soo dhaafay fudud ugu yeesisan okay qaabkan taa doonaysidna waa ka sii fududahay hadda waxaan isticmaalay loop meeshaan for loop isticmaalay macnaha loop wuxuu taagan tahay soo kale waxba doonaysaa inaad print geliso hadda soo kale output-keena fiiro meeshaan output-keena waxa waa roll number la 10 20 30 40 50 macnaha waa wax oo roll number ku soo laalaabaha maanta marka wixii markii maanta soo laalaabanaan macnaheeda printf maanta oo dhan inaan qaadano waa laga fiican yahay waayo loopka ka fiican inaad isticmaashid because loopka waxa loogu talagalay inuu yani macnihiisna waxa ah yani again and again inuu repetition yani execution keena inuu again and again uu soo celisho ilaa yani meeshii loogu talagalay ka gaaraysa baasho soo kale waxaan dhahnay inti I equal 0 so I wixii ka yartay 5 ilaa 5 markay noqoto ويستاجي شن مركز تكتب يستاجي شن سيرة كبلاب إلا شن أوكي تسمع فهمتنا ولا سو هذا قريبتي كل واحد جد بقى أو سيد الله استعماله in runtime initialization using a very C language so runtime initialization هادو جد بينا قبل أن دلنا سكده هنا أوكي هذا الصح ده صعبة أوكي وحنسمينه لما كان runtime initialization وحنسمينه
tusaale oo kale inta leedahay meeshaan waxaa leedahay enter the student roll number. enter the student roll number aa leedahay waxay isticmaalaa waxaan sameynaa slash aa leedahay slashan macnaha waa new line waxay kaa caawinaya wixii u gudbaya next statementiga new line oo ka bilaaban doonaa so halkan waxaa leedahay skynet percentage d then comma waxaa noqonaa haya meeshaas uu isticmaalay waxaa leynaa hadda intaa leedahay f leedahay the element the student so the student number student roll number wuxuu noqon doonaa sidaan soo socoto again waxaan isticmaalaynaa for loop isticmaalaynaa maxaa for loop isticmaalaa kii hore waxaan u isticmaalay inaan initialization ku sameeyo kan waxaan isticmaalaa si aan yani accessiisu ku sameeyo output-ka ku soo baxaa si fiican fahmi doontiin so hadda waxaan soo qaadanay 5 elementi aan soo qaadanay arraygana waa 5 elementi so waxaan soo qaadanay for loop aan isticmaalnay enter the student roll number skynet waxaan sameynaynaa 5 elementi ah input ahaan u gelinaynaa hadhowdii runtime initialization-ka so waxaan leenahay student roll number markaan dambe aan isticmaalayno for loop wuxuu u isticmaalaynaa inaan access ku sameyno markii hore waxaan u isticmaalay initialization ku sameyno asxaabta waxaan leenahay compiler ku sameynaynaa halkan qalada ka jira hadane meeshaan semicolon aan sii markaa loop isticmaalaysid semicolon hay isticmaalin so hadda wax qalada ma lahan so waxaan sameynaynaa run ku dhufanaynaa waxaa ujeedin wuxuu dhahay enter the student roll number student roll number kooda tusaale kale one ka bilaabanaa 2 3 4 5 shantii number waa gelisay waa kana saa ujeedin waa kana student roll number wuxuu kula mid yahay roll number 1 ilaa 5 markaa uu isticmaalay sida compile time initialization-ka waa soo qaadanay hadda waxaan isticmaalaynaa runtime initialization-ka runtime initialization-ka waxa waaye page-kan screen-ka markaa yacni file-ga aad ku gelinaysid waxaa loo yaqaanaa runtime initialization difference-ga hadda u dhexeeya compile time iyo runtime initialization hadda waxaan maleynayaa inay fahanteen sida hadda ujeedin hadda waa kana wuxuu dhahay enter the student roll number waa gelisay 1 2 3 qaabkan yani markaa inta ka gelinaysid screen ahaan markaa hadda gelinaysid waxaa loo yaqaan runtime initialization markii hadda ay banaanka value aan ku siinaynay tusaale kale markaa inta value aan ku siinayno dhahaynay is equal 1 2 like markaa hadda inta value aan ku gelinaynay macnaha qaabkaas oo kale waxaa loo yaqaan compile time initialization qaabkan oo kale waxaa loo yaqaan runtime initialization so waxaan leedahay oo ku dhufanay inta qaar leedahay tusaale kale value kala siinayna like 10 20 30 40 50 okay student roll number maxay kula mid yihiin 10 20 30 50 hadda waxaan maleynaa si fiican oo u fahanteen oo maleynaa exampleskan wixii su'aalo aad ka qabtid oo fahmi wayso ama meeshii oo qalad kaaga jiro tusaale kale programka sidiisa bannaan waa inaad practical ku sameysaa hadda programka waa inaad practical ku sameysaa على شيء كستو مشاس يعني استعماله إنه وحول تانية أو الله استعماله وأنا فهمتها هذا عشان كده السؤال ده فهم واحد علنا include in studio.h include كونيو دتش وحيابهاس أنت سيد الله استعماله followed for
printf scanf waxyaabahaas qaabka waxyaabaha yani micnaha ay u taagiin iyo waxyaabaha loogu talagalay in loo isticmaalo cashiradii koowaad aan kusoo qaadanay waa inaa dib ugu laabataa haddana programka waa inaa soo sameysaa haddii wax qalada yani ma wax fahmi weysan waa inaa commentiga kusoo sheegtaa waad iga soo jawaaba insha allah kulanti wacan oo xiise leh iyo cashirkeena kaleetood oo idiin soo duubi doona asxaabta oo idiin soo geli doona insha allah this week so asxaabta waan idin salaamay janaalka asxaabta ku cusub waa inaa subscribe saartiin si aad ula socotiin times up waa inaa sameysin si aad ula socotiin cashir cusub oo aan soo gelisho wixii su-aalo aan qabto gmailkayga whatsappkayga ama youtube-ka yani waa inaa ugu soo dirtaa qaab oo commentis ah insha allah waa kaaga soo jaabi doonaa so asxaabta مع السلامة كنت دنبو ونكسن وحيصله